الله وبركاته. waxaynu joognaa caasimadda ama magaalada madaxda Puntland Garowe ee Soomaaliya waxa weeye rugtii hidaha iyo dhaqanka iyo cilmi baarista ee abiyan professor deeqa culujoog ay ka ahayd agaasimaha ama maamulaha hagaag halkan waxa weeye rugtii hidiya dhaqanka iyo cilmi baarista ee abiyan markii aynu eegno halka kan waxa inoo ka muuqda ilaahay amarkii waxa inoo ka muuqda kushiinkii reerka miyiga ee dhaqanka iyo hidaha ahaa tan waxaa la yidhaahdaa waa xaabadii dalka ee la shidan jiray xilliyadii hore tan waxa weeye cawska kani cawskii qalalaa ee marka roobku da'ayo marka kaleba inta la soo jabsado oo halka dhigto kabridka lagu qabanayo isagu ololi ogaa kan waxaa la yidhaahdaa qaab waxa weeye cawska xilliga la shido ayuu ku xigaa inta xaabada waaweyn uusan ololku u gudbin waa 3 jaranjaro cawskii oo la ololiyey iyo qaabkaasoo lagu qabtay oo ka dhaga fudud xaabada adag iyo xaabadii adkayd ilaahay amarkii saddexdaas marka ay tahay baa xaabadii caadi noqonaysaa halkaas bahashaa tidcan ee halkaa ku wareegsan waxaa la yidhaahdaa qabo dhiilaha iyo hadhuubada iyo haamaha iyo muxuu ahaa waxyaalo fara badan oo Soomaalidu ayaa laga sameeyaa waxa weeye haraggii ariga waxa weeye dermada darfoolayda dermooyinka falaqta ah afka lagaga wareejiyo waxa weeyaan ilaahay amarkii dharigii reerka saddexdii dhammaar waa kushiinkii reerka miyiga kulligii ayaa isaguna halka idinka muuqda kii shaaha lagu cabayay baraadka ah ilaahay amarkii okay dariga kan waxaa la yidhaahdaa dhegoole hadda waa bir laakiin waxaa jiri jiray isagoo aan bir ahayna gebigiisuba dhoobo ka samaysan haddana kan ka adag kulaylka haddii uu yacni kaydsadana aan kulaylka sii daynin ee shay qeerin haddaad ku shubto uu kulaylkiisa qura ku bisleeyo ilaahay amarkiisa saddexdaa dhardhaaroo isu miisaaman kuwani waxaa inoo muuqda udbihii udbaha kani muxuu ahaa dhowr faa'iiday leeyihiin mar waxaa lagu raraa awrta oo waxaa la yidhahdaa kabaallo 4 gees baa la isaga gudbiyaa 4 gees markii la isaga gudbiyo aqalka kale aad aragteen ee gibisha iyo dhigaha iyo wax walba leh ayuu kuu sahlayaa in aad yacni ku rarto awrta waayahay kan udubkii markuu udub keliya yahay 2 faa'iido oo kalena ayuu aqalka u leeyahay aqalkaa dhisan 2 faa'iido oo kale ayuu u leeyahay ilaahay amarkii mar waxaa weeye waa kaa oo dhiftu markii dusha culays laga saaro si aanay keligeed adhaxda uga jabin isagii baa hayo oo kaabaya udubkaasi mar kale markii aqalku sidaasoo kale u dhisan yahay ee dhinac dabayli kaga timaado dhinaca ay dabayshu kaga timi baa udub dheer oo kale ah dhinaca lagaga taageeraa si aanu u soo ciirin ee uu dabaysha u difaaco ilaahay amarkii okay kani waa udubgeed bartankaasna waxaa kaga jira ama udub ama 2 udub oo udub dhexaad la yidhaahdo oo xoog leh oo aqalka dadka faraha badan marka la saarayo in dhiguhu iyo hoos soo ciiraan aan ogolayn ilaahay amarkii waayahay halkan waayahay ilaahay amarkii halka kani waa isla halkii oo kale waa kushiinkii laakiin waxaa dheer haantii biyaha lagu shubanayay haantan biyaha lagu shubanayo hadda dadku way ilbaxeen xilliyadii hore saabkeedani waa qori iyaduna waxay ahaan jirtay qabo ama cawkii la doonaa laga samayn jiray ama bahalayo argeed haddeerse bir sida aqal soomaaligii noocan oo kale ahaa yacni dadku siraac keliya qaar sitaad arkaysa oo aan aqal kaleba wadan iyo karbaashiyo iyo awrta intay iskaga rataan iska guura ilaahay amarkii yacni dhaqankii sibuu u soo debdebcayaa hadda waxaad aragtaa haan bir ah waxaad arkaysaa shiraac waxaad arkaysaa muxuu ahaa bac aqalka dusha laga saarayo waxaad arkaysaa haddii ba idankeeda leeyahay caagad waxaad arkaysaa haddii ba jirikaan wax noocaasoo midhano annagu aanan lahaynoo midhan baa dafna soo yidhiyo kaayagii saasuu imanka leeyahay dhaqankayagii ilaahay amarkii waxaan kale meesha idinka muuqda geedka
وجيت سومالي أنا ودرنك كرياد وما تكتجر وكما أرق لكن درنك جيت كأفريقيا أنا جموية أنت كلام لها وحكب حلول كدرب كأ ولقاشة وحنا إلى هذا دين جيت كان دين كلا هذا وحوي حبكت جيت كبيد اللي هذا كبحض أو كلا كبحض كلا ديسة صدق كم بالسيا مل بالي هذا مل أما دين وياهي عرين باك بحدا جوجي حلو وكلنا حان جيران كنا حاب باكلا حاب يعني عرين قال شيء وهوستي سحلو كعنا ومركنا وكلنا حان دوكسي بولية أو حرب بولية أو أضبا لقد اكتاج يقولي قال لقوا أوضه ورابه يعني وكبقى مركو قد أحد وكلا يقال إلا ده كل عقلية هي بحالكوية يعني كم سود دقدقوا جيت كل دي كلا الفائدة دي سقولها هذا دمعين هن إذا شرحوا إذا لما ما يسوق إلهي أمرتي بل سوى إذا سوق قابين إياه جيت كم واحد ليلة هذا دور جيت دور بالليلة هذا لولك كما وضبحه لولك نجاح أو ميل بورها فرها بدل السمانة أدركتان لا غير أو كده دلدلا أو كبحة لولك كلا وكبحة وادوسين مركز مقالة الأسعار وشوكت كربايد يوحي كسرية أما محوها لو قالوا إلهي أمر كربايد باللو قالوا أما لومي أما حرحت يعني في الدمر كلا قالوا وحي كسرية أيو كبحيا وهي دوركو وحوليه دمك أو لغوشي تمركو فريق وحوليه حولها أو ضاغة وحوليه قريها أو لغوليسو أو دوشا لغاقاديسو وحوليه هديه بإذن كده ليه iyada oo sida sarabka sidiisa caadiga ah inta dhinaca la isugu qabto ama ardaha laga dhigto ama hadii la doono cariish dhanba laga dhigto geedkan duurka la yiraahdo naftiisa waa mid faa'iido badan okay tani waa dhigtii udurku hayaan marka hore ba idin sheegay kana waa udurkii gaarka ahaa ilaahay amarkii ka waxa la yiraahdaa inkastoo aan sidii uu caadiga ahaa looga dhigine si kale oo sharaxaada loo sameeyay waa lool baa la yiraahdaa loolkii waxa weeye dhiigga tan iyo udurka markii la isaaro ayaa isagoo saas oo kale dhinaca isugu haya dusha taa looga soo roga waad aragtay mar meeqa Soomaaligu inuu sida dunida maarkeeda u sameeyay ama sida kubadda kor uga sameeyay waayahay ilaahay amarkii halkan waxa weeye ardaagii ragtii biyaha lagu shuban jiray ee laga cabi jiray weeyaan ilaahay amarkii haantaas haruubkeedii waa kan waxaan oran karaa dadyogan ama afrikaan ha ahaadaan ama yuruban ha ahaadaan ama caraba ha ahaadaan waxaan ay soo samaynayaan ee haamo iyo jirikaano iyo fur kale in inaga la ina kaga dayday mooyaane inagu cidna kagama aynu dayan markaynu xaqiiqdii u daadegno waysadeenu nooca ay u samaysan tahay marka aynu eegno waa muxuu ahaa iyadii haluubkeedu isku yihiin halkan laga dalooliyo lagaga weysaysto intii aad doontana kugu filano halka doonto aad la mari karto waayahay haanteeni waxa lagaga cabayaa kaas oo la yiraahdo magaciisa kalax baa la yiraahdaa sidii saasna waa loo deyn karaa muxuu ahaa dhegdheer oo halkaas oo kala ah oo haanta marka aad gelinayso si aadan biyaha faraha u gelin yani aad soo darsato sidii saala wuu kugu anfacayaa hadii sidii dheeraa uu leeyahayna wuu kugu anfacayaa ilaahay amarki okay saabkeedan haanta saabkeeda waa la tawaqori waxa lagu wareejiyay jil baa la yiraahdaa jilkaasi wuxuu ka samaysan yahay harag ari ama harag geel oo la jeexjeexay oo la dhuubdhuubay ka bacdina la isugu celiyay si aan qoryahani u kala yaacin maydhaxda tan lagu xidhxidhi lahaana wuu ka adkaysan badan yahay ilaahay amarki